halkani waa Universal TV studio aan ku leenahay magaalada Hargeysa waxaan si toos ah idiga soo gudbin doonaa hadii Rabbiga awood leedmo warkii caalamka waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta qasriga madaxtooyada Jarjarayd ku qabtay ayaa waxa uu dhambaal ama baaq ku saabsan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka oo maalinta bariya looga dareeri doono guud ahaan Soomaaliland u diray shacabka kala duwan ee ku dhaqan Soomaaliland warbixintan waxay noo eegay wariyahayaga Cabdiruus Cabdilaahi Beershiya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo Jarjarayd ku qabtay xarunta aqalka madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay doorashada maalinta bariya ay u dareeri doonaan shacabka Soomaaliland ee lagu soo dooran doono xildhibaanada cusub ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland madaxweynaha ayaa fariimo kala duwan waxa uu u diray musharaxiinta tartanka ka qayb galaya iyo sidoo kale bulshadeynta reer Soomaaliland ee codkooda dhiibanaya waxaan ugu baaqay inay si nabadgelyo ah u codeeyaan maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah oo qaranka Soomaaliland taariikh gaar ah u leh adduunka oo dhan taariikh u leh maanta waxa soo dhamaaday ololihii iyo diyaar galowga soo waday 9 bilood ee doorashada oo marxalad badan soo maray haddii eeba idmo ilaahay idinkiisa nabad iyo barwaaqo ku gaaray bari aroorta waxa loo dareerayaa codbixintii labada golaha wakiilada iyo golaha dowladda hoose oo aynu dooranayno waxaynu hadda doorashada hawshaan u galeynaa waxaynu u galeynaa qof waliba horta marka hore naftiisa oo fiirso adiga walaalka laba walaati laakiin kala gaar baati la jeclay waa kala leeyihiin inuu jeebkiisa wax ku jira isaga qoysaskiina carruurtuna way kala duwan yihiin gurihiina way kala duwan yihiin haddana ilmaha la tiro isku baati oo barxad iyo balaayo wadaagta marka waxaanu doonaynaa qoysku waa caynkan haddana qabiilku waa caynkan haddana deegaanku waa caynkan isku deegaan baanahay waa run laakiin marka hoos loo dagal dhulkiina waa kala jaad guriina waa kala jaad geelina waa kala jaad hadaa geeleytiin hadaa beerleytiin waa kala jaad hadaa badda kala kalmastaankiiba qayb meel ku gala marka saasaa bini'aadamku marna u midaysan yahay marka waxaanu doonayaa doorashooyinka in Soomaaliland taladeedu mid noqoto gobol kasta iyo cid kasta oo degan iyo qof walba Soomaaliland ka u bariyay ka u galbeeday waxaanu doonayaa inay tala midaysan iyo ujeedo midaysan oo qaran iyo horumar midaysan iyo xoolo qabsi midaysan ay yeeshaan doorashada taladeeda iyo amnigeeda Soomaaliland cid waxba kuma darsan dhaqaalaha wixii ku baxay marka la eego 20 ay caalamka oo dhan qolada saa waxbaan caawinaad ee qowda marka la isu geeyo 20 ku leeyahay maanta waxay eegayaan way la yaabeen dad badan baa Soomaaliland ba aqoon walaalahay waxa hadda hubaala marka rifoodkaana bidray ku dhamaan in qiimayna ee aynaan eegin qaad yar oo dhacay waxa hubaala qof wal oo adduunka halkiisa loo weeyo qof wala marka isagu sharfo uu qiimo isu yeelo ayaa lagu qiimeynaya la nagu qiimeyn maayo bariyo la nagu qiimeyn maayo waan soo kala qabta la nagu qiimeyn maayo waxbaan helay oo ilaahay la bari maayo aan barayna waxa la nagu qiimeyn maayo waxa la nagu qiimeynaya shakhsiyadeed hadday deeqo wax tarayso hadday lacag wax tarayso hadday ciidamo ajir wax tarayaan haddii dawladda soo wax tarayaan dawladda muqdisho kale samay tarnahay 30 sano ayaa lagu dhex jira waxaan qabaa hadday kaliya tala gaar lahaayeen inay hor u gaar lahaayeen marka waxaan leeyahay Soomaaliland guul baynu joognaa oo bixinta nabadgeliyo inay nagu dhacdo baan rajeeyaa waxaan ka codsanayaa muwaadin kasta inuu xil iska saaro qaranka ee aanu eegin isagu kaleynka ku jiro ka codka bixinayo ka askariga ilaalinayo nin walba xilkaasi waa laga rabaa waxaan ku codsanayaa dhalinyarada dadka waayeelka ah iyo ka buka iyo dumarka oo kale in la hormariyo oo la ixtiraamo maanta waxaan leeyahay murashaxiinta dardaarka mid waxa weeye walaalayaal waa gaadheen heerkii siyaasadeed ee doorasho murashaxiintooda waxba idinma dhina sharaf iyo karaamo iyo qadarin iyo doorasho intaba waa leedsi inta golaha tagaysa intii golaha la ilaa intaas tagaysa inta kala sugto hadda wax tirsan si nabadgeliyo ah dacwadaada ugu soo gudbi commissionka haddaad ku qaracdeen maxkamadda geynaysaa si amaana oo nabadgeliyo ah oo ilbaxnimo ah oo tulaalo u dacwo haddii kale waxa dhaawacaysaa wadda yar doonaytii qaranka intaasoo ajnabiga inta weligeed intaasoo safiir shaqada haya inoo iman وناس كأنت على واحد يوصل صار
sidee u dhici kartaa marka ogow haddaad xitaa adiga aad qaran tirsanayso qarankaa u tirsa ogow qaranka dee rag baa u dhintay qaar baa u naafoobay qaar baa u maskax beelay haddaad gardarre xitaa haddaad tirsanayso miyir qab intana waxaa lee murashaxiinta waa Idris Beershe telefishinka Universal Hargeysa. gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaar ayaa waxa uu baaq u diray shaqaalaha iyo waliba ciidamada iyo dadweynaha kala duwan maalinta bariya u dareeri doona dhiibashada doorashada ama codeynta ee doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka oo maalinta bariya haddii rabbigu idmo Soomaaliland ka qabsoomi doona. wariyaha kale Mukhtaar Ismaaciil Cali ayaa warkan inoo haya. gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland Cabdirashiid Maxamed Cali Riyaar oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ugu baaqay shacbi weynaha Soomaaliland iyo asxaabta siyaasadda inay ilaaliyaan kala dambeynta iyo walibana amniga inta lagu guda jiro doorashada maalinta bari toola ka bilaabmi doonta guud ahaanba Soomaaliland. waxaan halkan baaq uga dirayaa guud ahaan shacabka waayeelka waxgaradka salaadiinta cuqaasha culimada haweenka dhalinyarada iyo magac kasta oo ay bulshadu u qaybsanto ururada bulshada dhammaantood waxaan leeyahay maalinta beriya dhammaan waxaan idinka rajaynaynaa oo idinka codsanaynaa haddaanu nahay komishanka doorashooyinka qaranka in dhammaanteen aynu commission wada noqono inaynu dhammaanteen ciidan noqono inaynu dhammaanteen hantiilayaal dalka iyo ciidda la noqono inaynu dhammaanteen xil isa saaro miisaan iyo mug leh oo aynu nabadgelyadeenna iyo habsami u socodka doorashada ku ilaashano. dhammaan waa ogtihiin waxaad tihiin madaxdii dalka waxaad tihiin siyaasiyiintii mustaqbalka waxaad tihiin hogaamiyeyaashii shacabka iyo bulshada sidaa darteed waxaa ogtihiin oo aad garanaysaan oo ku baraarugsantiin baynu isxusuusinaynaa waxaanu idinka codsanaynaa aada iyo aadna idinkaga mahadnaqaynaa shaqadaynu soo wada qabanay waxaan idinka codsanaynaa in aad dhammaan ku wacyigelisaan taageerayaashiina u sheegtaan goobjoogayaashiina u sheegtaan in doorashadaasu haddii alla ka dhigo ay ilaahay way inooga dhigayaa si wanaagsan idinku ku dhacdo. gudoomiye Riyaar sidoo kale waxa uu fariin baaq xambaarsan u diray warbaahinta isagoo ugu baaqaynaya inay ka fogaadaan wararka been abuurka ee ku salaysan doorashooyinka. waxaan uga gudbayaa saxaafadda guud ahaanba waxaan idinka codsanaynaa in maantana aad sidii wanaagsaneed aa usoo shaqaysaan inaydaan sii daynin war aan rasmi ahayn oo aan meesha uu ka soo baxay iyo xaqiiqdiis aydaan haynin oo aan komishanka doorashooyinku idiin soo gudbin inaydaan marnaba sii daynin inaydaan mala awaal gelin oo idinku waxaad doontaan iyo natiijooyin hordhaca aydaan marnaba ku dhaqmin. waanu idinka codsanaynaa waanaanu idinkala dardaarmaynaa. Mukhtaar Ismaaciil Cali telefishinka Universal Hargeysa. waagaag daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa wararka ku saabsan doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee Soomaaliland bari ka qabsoomaye. madaxda saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland u cid wadani iyo waliba kulmiye ayaa waxa ay maanta bulshada ugu baaqeen iyagoo si wada jira ugu qabtay shir jiraa'id maanta magaalada Hargeysa inay ilaaliyaan nabadda isla markaana nabad ku codeeyaan meelna uga soo wada jeestaan ilaalinta nabadgelyada. gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga talada Soomaaliland haye kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed gudoomiyaha xisbiga macaaridka ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha kale xisbiga macaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahan. halkan waxaan saaka ku joognaa saddexdii xisbi qaran waxaanu shalayta isla soo hadal qaadnay oo isla go'aaminay inaanu maanta war-saxaafadeedkan qabanno sababtaanu qabananaana ay noqoto in ololihii doorashadu uu dhammaaday in berito bishu 31 tahay 6 subaxnimo loo dareerayo goobihii codbixinta inay lagama maarmaan tahay saddexda xisbi qaran
musharaxiinta saddexda xusbi qaran ka tirsocota ee commission labada gole iyo taageerayaasha guud ahaan iyo shacabweynaha reer Somaliland in doorashada aynu aad iyo aad nabadgelyadeeda u ilaalino inaynu dad isku wadana isjecel bisil doorashooyin fara badan soo galay ay naga muuqato in maanta waxa inoo yimi dad fara badan dowlado fara badan baa maanta inoo yimi oo fara badan heer dowladeed oo safiiradoodii ay wada socdaan waxa inoo yimi saaxiibo Somaliland waxa inoo yimi rag madaxweynayaal hore ahaan jiray dadka faraha badan le maanta inoo yimi Somaliland way qiimeynayaan kulmiye qiimeyn maayaan oo cid qiimeyn maayaan waddan qiimeyn maayaan laakiin qaranka Somaliland bay qiimeynayaan waxaan ka soo gudubnay caqabado badan baan ka soo gudubnay alxamdulilah rabbil caalamiin maanta meel fiican ay maraysaa adduunkuna maanta diiradda inagu hayaa taas waxay ku tusaysaa in dan laynaga leeyahay doorashadan insha allahu tacaala waxaan doonaya inaan muujino inuu nahay hal dad oo keliya hal ummadad oo keliya iyo hal qaran oo keliya one people one nation one country aynu nahay aan tusna insha allahu tacaala dardaaranka uu sameeyey kiisoo kalena idinsiinaynaa dadka inoo sharxa waa dadkeennii meelna way isku wada imanayaan baarlamaanka iyo local councilka waxa weeye $3 ayaa waayaya musharaxnimada musharax kasta waa inuu halkaa ku sitaa 2 kaad kii waan helay iyo kii waan waayay ma in la waayaa ama 3 jeer baan waayay waa inaan soo taagano dhacda ma jirto doorashadii aynu sugaynay muddada dheer ayaa berrito insha Allah aynu dareereynaa fariintuna waxa weeye marka hore nabadgelyada ilaalino marka labaadna si nabadgelyo ka codayno oo muwaadin kastaana cidda uu doonayo u codeeyo xisbigu doono u codeeyo musharaxa uu doono u codeeyo nidaamka na ilaaliyo si hawshu hore inooga dhamaato amniga guud de xukuumadda ka mas'uula inay sugto goob kasta amnigeeda in la sugo wuxuu saaran yahay xukuumadda hawsha doorashada siday u dhan tahayna waxaynu u daba fadhinaa commissionka oo xukuumaddu gacan siinaysaa axsaabtu gacan siinayaan waa muhiim inaynu aqbalno oo qaadanno awaamiirta la bixinayo ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa oo muwaadinku xaq u leeyahay in codkiisa dhiibto cidii loo ogolaaday inay dhaqdhaqaaqdana ay dhaqdhaqaaqdo oo cid kale ku xadgudubtaa aanay jirin wagaag daawadayaal kuwaasina waxay ahaayeen mas-uuliyiinta saddexda xisbi oo bulshada baaqu diray wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu sheegay in laga bilaabo caawa 12 habeenimo dhammaan baa la joojiyay dhaqdhaqaaqa gaadiidka kala duwan marka laga reebo gaadiidka sida sumada komishanka doorashooyinka Somaliland oo number gaar ah u asteeyay gaadiidka ka shaqeynaya doorashooyinka wasiir Maxamed Kaahin Axmed ayaa hadaladiisii waxa kamid ah sidan maanta ayaa ugu dambaysa waxa dhaqdhaqaaq soconaya gaadiidku mid dawladeed iyo mid xusbi iyo mid musharax 12 caawi istaagaya gaadiidka qura ee berrita dhaqdhaqaaqaya waxa weeye waa nabarada dhaqdhaqaaqa ee ay bixiyeen commissionku kuwii xusbiyada siiyeen kuwii maxaan ku raahday goobjoogayaasha siiyeen iyo kuwii hay'adaha lagama maarmaanka u ah inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ay siiyaan waxa kamid ah maxaan ku raahday wasaaradda caafimaadka oo kale ambalaansiyadu way dhaqaaqayaan biyaha oo kale way dhaqaaqayaan shirkadaha telefoonada waa la siinayaa adigu cidii dhaqdhaqaaq leh ay hawshooda oo qura dhaqaaqayaan berrita dadkoo dhan wada biliis baynu nahay waxaa laga doonayaa dadweynaha haddii ay arkaan wax nabadgelyo darro ah inay la xidhiidhaan nambarka biliiska ee maxaan ku dhahdaa 99
وهكذا daawadayaal waxaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo sheegay in caawa 12 laga bilaabo la joojiyay dhammaanba dhaqdhaqaaqa kala duwan ee gaadiidka maadaama maalinta bariya loo dareeri doono doorashada isla markaana la ogol yahay oo kaliya gaadiidka leh sumadda komishanka doorashooyinka. halkaad nagala socotaan waa Universal TV studio aan ku leenahay magaalada Hargeysa imikana magaalada Muqdisho. warbixin ku saabsan gaadiid ku cusub Muqdisho ayaa waxaa lagu arkaa goobaha qaraxyada isagoo gurmad sameynaya gaadiidkaasi. warbixintani waxaa magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyahayaga Maxamed Ciise Koona. waa mootooyin loogu talagalay sameynta gurmadka degdega ah haatan waxay ku jiraan heegan diyaar garowgoodu ma lahan jiha cayiman oo ay aadayaan waqtigan balse waxay sugayaan dhawaaq soo gaaro ay ka falceliyaan kadib markii baabuurta ambalaasta saxmadda wadooyinku caqabad ku noqdeen waxaa loo baahday adeegsiga mootooyinka bixiya gurmadka degdega ah kuwaasoo ka dusi kara xaafadaha iyo wadooyinka xiran qaarkood. shaafici xuseen cumar waa darawalka mootadan waxaa loo tababaray siduu u siin lahaa daryeel bukaanka gurmadka u baahan ka hor inta aan la geynin isbitaalka. shaqadeena waxaa waaye markay dhacaan shilal ama ay dhacaan dhibaatooyin bulshada kusoo gudboonaato anaga ka falcelinaa annagoo sida u dhaqsiyaha badan ay jawaabayeen dhibaatada meesha ka dhacday. waxaan qaabilsanaa qaybta ambalaasada si kala baxaan aniga shaqsiyan waxaan qaabilsanaa qaybta mootooyinka si meelaha fudud acyo uu gaaro dadkana aga gaar dhibaatada intay kusii fogaan ka hor si loo helo gargaar degdeg ah. qaybtan waxaa la dhahaa qaybta dashboardka oo beaconka ama dispatchka waxaana lagu ogaadaa inta badan baabuurta shaqada jiro iyo kuwa heeganka ku jira qofka markii uu soo waco 446 soo waco kiiskiisa la abuurayaa oo inta laga create gareynayaa ayadoo oo systematical ah oo gaarigii anaga aan ogaan karno waxa uu qabanayo iyo waxa la socdo waxaan in badan naga caawinaydaa baabuurteena dhaqdhaqaaqooda kan shaqada leh iyo kan aan shaqada lahayn inaan ku kala ogaano. mootadan saddexda lugood leh waxaa u dhammaystiran agabkii loogu talagalay in gurmadka loogu fidiyo qofka dhibanaha ah sida uu igu warbixinayo mar kale wadaha mootadan. inta ku wata waxeeda meeshii qalabkan ugu jireen waatana qalabka ku keedsanaa boorsadii oo aan ku sameeyay first aid qofka lagu caawinayo dhibanaha waatana kanna waa stretcher-keeni oo qofka dhibanaha lagu qaadayay iyada way ka duwan tahay ambalaasada kale waayo ambalaasada kale way kala weeyeen way qaadi karaan stretcher bir ah iyada laakiin maxay wadataa stretcher-kan oo bacda ah oo noocana qofka lagu qaada oo la isticmaalo qofka in lagu qaado waa bareele qofka la seexina hadii waa lagu qaada inta lagu soo saaraa. caqabado badan ayaa baabuurta gurmadka degdega ah kala kulmaan wadooyinka caasimadda kuwaasoo isugu jira saxmad iyo in mararka qaar ciidamadu celiyaan sida uu ku warramay Maxamed Yarow Cabdi oo ah agaasimaha gargaarka degdega ah iyo ambalaasida ururka Bisha Cas. hataa dadka ma aqaano markay qaadanayaan license-ka hataa in la baro in kala ay dhano waxaa arkaysaa gaariga dhawaaqaya ambalaas oo bukaan daran oo sida wadooyinkii looma banaynayo. caqabadaas waa caqabad naga haysta shacabka iyo gawaarida dadka wada. tan kale waxaa weeye checkpointyada iyo ciidamada qalabka sida oo meelaha checkpointyada ammaanka haya marmar markaa u tagtid delay ku sameeyaan daahitaan ku sameeyaan waxay ku leeyihiin maxaa tahay xagee u socotaa aqoonsigaada keen iyagoo ay arkayaan haddana gaarigii astaamihii Bisha Cas inay u leeyahay. marka waa inaad qof u dagaa u sharxaa gaariga ay baaraan taasna waxay keenaysaa markaa in laga daaho qofkii dhibaataysnaa xaalad caafimaad qabay. mootadan sida caadiga ah waxaa loogu talagalay inay 3 qof raacaan qofka bukaanka ah iyo darawalka wada mootada iyo waliba qofka kale caawiya ah waxaana loogu talagalay inay ka jawaabto dhacdooyinka degdega ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyadoo waliba mootadan ay u fududahay in ay tagto meel kasta maadaama baabuurtii waaweynaa ee gurmadka degdega bixi jiray dib ay ku noqoto inay gaaraan goobaha ay ka dhacaan musiibooyinka sida daaladka qaraxyada iyo waliba sidoo kale dadka meelaha ay ku soo dumaan. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo maanta gaaray magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal
ayaa waxa uu bulshada ugu baaqay in si nabadgelyaha berri ugu soo dareeraan doorashooyinka kuna codeeyaan wariyahayaga xuseen caate iyo jaamac ayaa boorama inooga soo diray warka madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Alxaaji Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo soo gaaray maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Umar Cali Cabdullaahi Badan maayirka magaalada Boorama iyo waliba xogayaha dowladda hoose magaalada Boorama iyo saraakiil kale oo ka tirsan laamaha dowladda gobolka Awdal madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo haddaba ujeedka safarkiisu yahay dardargelinta arrimaha doorashooyinka ee maalinta beriya ka qabsoomi doona guud ahaan dalka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal maalinta beriya ku sugnaan doona ayaa warayna dab waxa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi waxaanu halkaasi ka sheegay waxaan ku suganahay xaruntii madaxtooyada gobolka Awdal oo aan ku soo dhaweynay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii laba maalmood inaga maqnaa safarkii xeebaha markuu dhaafay intaana waxaan ku mashquulsanayn oo ilaa imika barsaabkii ku mashquulsan yahay hawlihii gobolka iyo xalinteedii goob walba sidii ay shaqadu u socotay iyo halkii loogu talagalay inay bilaabanto iyadoo wax walba ay haysan nidaamkeeda uu degan yahay madaxweyne ku-xigeenka ku soo dhaweynaa kuleeyda qofka codka ugu horeeyay ku ridana aad u noqonaya insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo kulay waa dhalinyar baa la iskaga badan yahay laakiin haddana dadka waqtiga wax barayo waanu iska hagaagi doonaa insha Allah waanu kugu soo dhaweynaynaa ilaa imikana arrimuhu si fiican u socdaan oo nabadgelyo ah ciidamada qaybintoodii qalabka qaybintoodii kuwii ugu dambeeyay xarunta degmada gudaheegu maanta ayaa goob walba halkeeda la fadhiisanaya haddii Ilaahay yiraahdo oo la tagaya insha Allah ilaa caawa ayay ku dhamaanaysaa si waagu ugu bariyo geestiisa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Alxaaji Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ka warramay guulaha waaweyn ee doorashadani u horseedayso Soomaaliland sanadkani ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay Xuseen Caataye Gaafna Universal TV Boorama Ilaahay baa mahadle nagu soo nabad celiyay gobolkii saaka marka labaad waxa aan u soconaa iyadoo doorashadii ay insha Allah haddii la gaarsiiyo bari toole 6 subaxnimo ka bilaabmi doonto dhammaan dalka Soomaaliland adduunyadii oo dhan maanta ay nala joogto goobjoogayaashii caalamiga ay maanta boqolaal kor u dhaafeen si ay noola qayb galaan ama ay u arkaan dimuqraadiyadda Soomaaliland arrintan maanta waxay noqonaysaa arrin qaranka Soomaaliland taariikh dheer u noqonaysa taariikh weyn u yeelaysa waxaan u baahannahay in diyaar garowgii waa ka asaal la sheegay wadanka uu diyaar garoobay gobol iyo degmoba waa loo diyaar garoobay waxa kaliya yaala in berri toole haddii alla ka dhigo codkii lagu rido taasina ay inoogu bilaabanto si karaamiye sharaf iyo anshax loo nabadgelyo ah marka waxaan u nimidnay annagoo dhammaan goboladii sidaa loo kala baxay qof walba halkuu ka diiwaan gashanaa uu baxay anagoo maadaama aan Boorama ka diiwaan gashanaa on ka launch gareynay maalintii ama ka daahfurnay diiwaangelintii gobolka Awdal 2016 saasana kan ugu soo noqday waxaan rajaynaynaa in doorashadaasi berito si nabadgelyo ah oo deganaansho noogu bilaabanto waxaan leenahay dhammaan shacabka Soomaaliland shacabka Awdal maanta u nimidnay inay u diyaar garoobaan doorasho hufan oo xalaal oo xor oo xalaal ah dadka ajaanibka ee noo imanayana si wanaagsan loo soo dhaweeyo lana taakuleeyo si ay shaqadooda u qabsadaan iyagoo xora way iman doonaan goobjoogayaasha kala duwan dhulka ay imanayaan wax ka mid degmada Boorama ilaa iyo Burcoorta way gaadhayaan labada gobol kalena kulli qaar baa gaadhaya laakiin ugu yaraan 4 gobol way ka fargaraynayaan inay wada u joogaan qaabka doorashada u dhacayso waxay isku dhex jiraan siyaasiyiin aqoon-yahano isku jiraan rag badan oo Afrikada xisbiyada mucaarid ka socda oo la yaaban habkeenan sinaashaha tartanka dawladnimadeena iyo dimuqraadiyadeena aad ula yaaban oo dhammaan ugu yaraan 12 dal Afrikaan ka socda safiiradii midowga Yurub oo dhan baa socda marka runtii waa guul taariikhiya guusha taariikhiga waxaan rabnaa in wada ilaashano dhammaanteen shacab iyo dawlad banahay Xuseen Caataye Gaafna Universal TV Boorama komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo ku jira diyaar garowga ugu dambeeyay ee doorashooyinka Soomaaliland oo maalinta bariya loo dareeri doono ayaa waxa ay kala direen shaqaalaha ka hawlgalaya goobaha codbixinta ee bari codka laga dhiiban doono aynu ku horeyno warbixinta magaalada Hargeysa ee komishanku kala direen wariyahayaga Mukhtaar Ismaaciil ayaa warkan inoo haya komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta kala diray shaqaalihii agabkii ka hawlgali lahaa doorashada
golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee ka dhacaysa degmada Hargeysa waxaana halkaasi hadallo dardaaran u jeediyay shaqaalaha la kala diray gudoomiye ku-xigeenka komishanka doorashooyinka Mustafa Maxamed Daahir saaka waxaynu halkan u joognaa in aynu haddii Ilaahay yiraahdo u diyaar garowno isla markaana goobihii aynu u dirno agabkii iyo ciidamadii iyo shaqaalihii ka hawlgeli lahaa inagoo u diyaar garoobayna doorashada beri dhici doonta haddii Ilaahay yiraahdo waddanka oo dhan ka qabsoomi doonta waxa Ilaahay lagu mahadiyaa in wax walba inoo diyaar yihiin ardaydii way joogaan baabuurtii way joogaan ciidankii way joogaan qalabkiina waa diyaar waxaynu haddii Ilaahay yiraahdo diri doonaa goob walba iyo shaqaalaha iyo ciidanka tegaya iyo qalabka tegaya gobolka Maroodi Jeex maanta halkan waxa laga dirayaa xaruntan jaamacadda Hargeysa waxa laga dirayaa goobaha u baxaya miyiga magaalada Hargeysa iyo goobaha tegaya magaalada Hargeysa dhexdeeda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta asxaabta siyaasadda ee Somaliland u qaabilsan komishanka doorashooyinka waxaan ugu baaqayaa shacabweynaha Somaliland maalinta beriya ee codayntu dhacayso koow inay nabadgelyada ilaaliyaan inay la shaqeeyaan ciidamada kala duwan ee qaranka ee hawsha ka shaqeynaya ka shaqeeyaan in si asluubaysan qof waliba kuyuga u soo galo oo maalinta codkiisa u dhiibto inay shacbigu u soo dareeraan inay codeeyaan inaynu codeyno oo aynu qarankeena u hiilino isla markaana qof waliba cidii uu doonayo uu codeeyo waxa kale oo dadweynaha ka codsanaynaa loo tegayo deegaanadan iyo dadkan madashan lagu kala diraya ay u shaqeyn doonaan deegaanada miyiga ah deegaanada magaalada ah inay saacidaan hawlwadeennada loo soo dirayo waxa la wixii kaga beegmay halkoodaasi ka saacidaan waxa la wixii amnigooda ay halka ka ilaaliyaan iyaga soo dhaweeyaan hawlwadeennana waxaan ku dardaaraynaa iyaga inay gacanta fududeeyaan inay maxaa la yiraahdaa si hawshii noogu kala socoto amniga laftooda iyagu ay qayb ka qaataan oo aana iyagu abuurin crisis-ka aana iyagu abuurin buuqa hadday waxan arkaan hadday kuyuuxuma arkaan ay markaba iskaga gudbiyaan beriyo isniina oo 31 loo dareeri doono shacbiga reer Somaliland codeyntooda u dareeri doonaan komishanka qaranka mar saddexaad waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin ilaahay baa la qabtay walaaci naga hayay baa naga baxay shacbiga kii ka yaba ka baxay mar walba meel walba waxa loogu oran jiray masuura galba halkaa waxa ku jabay cadowga reer Somaliland meel kastaba ha joogaanay oo aan ogolayn in Somaliland goonistaaggeedu uu socdo oo aan ogolayn in doorashooyinkii hore uga soo dhacayo kuwanba arkale oo ka indhala waxay cibro u tahay kuwa dawladaha sheegtay United Nationska laga aqoonsan yahay ee Afrikaanka inagu xeeran oo dhan hadii geeska Afrika taya Afrika baritaya ta galbeed iyo ta koonfureed mid walba ay tahay tawaqooyiba ay cibro u tahay doorashada sidaynu hanaanka dimuqraadiyadda aynu horena ugu soo qabsanay maantana aynu ugu qabsanayno guud ahaanba waxaa maanta si rasmi ah loo kala diray shaqaalihii ka howlgali lahaa doorashada ee ku kala sugan gobolada iyo degmooyinka waxaana guud ahaan codayn doona maalinta beriya sida la filayo 2 milyan iyo badh ku nool Somaliland Mukhtar Ismaaciil Ali telefishinka Universal Hargeysa wagaag daawadayaal halkaan nagala socotaana waa Universal TV istuudiyahan ku leenahay magaalada Hargeysa oo warkii caalamka si toos ah idiga soo gudbinayo kulan lagu daahfurayay barnaamijka horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdiraxmaan Shoodha ayaa warkaasi Muqdisho inooga soo diray kulan lagu daahfurayay barnaamijka horumarinta dhaqaalaha qaranka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulankani oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka iyo marti sharaf kale ayaa lagu daafuray qorshaha horumarinta dhaqaalaha qaranka kaasi oo udub dhexaad u ah dowladnimada Soomaaliya xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa ka hadlay baahida loo qabo horumarinta hufnaanta maaliyadeed ee dalka iyo sidii loo adkeyn lahaa tallaabooyinka suuban ee la qaaday 4 sano ee ugu dambeysay ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Suleymaan Sheekh Cumar oo sharaxaad ka bixiyay waxa uu barnaamijkani ku saabsan yahay waxaa la dejiyay qorshe la yiraahdo qorshaha qaranka ee 9aad qorshahaas wuxuu jaangooynayaa oo dhabaha u xaaraya sidii waddanka muddada dhexe ee 5 sano ah
horumarintii lagu samayn lahaa iyada oo lagu salaynayo baahida asaasiga ee jirta midda loogu talagalay in wax lagaga qabto horumarka oo ay ka mid yihiin qaybaha wax soo saarka sida xoolaha beeraha kalluumaysiga iyo waxa la mid horumarinta ganacsiga iyo adeegyada guud ee ay bulshada bixiso iyo socodsiinta howlaha maalintu maalin ah ee ay dowladdu fulinayso. dhanka kale waxaa kulanka kelmadahooda qaatay khubarada lagu casuumay ee ka soo qayb galay barnaamijka horumarinta dhaqaalaha qaranka. marka in laga wada hadlo horumarinta dhaqaalaha taabagelinta ujeedooyinka dowladnimada iyo horumarinta kobaca dhaqaaluhu waa wax asaasi ah oo muhiim u ah ayna tahay in bulshadu iska kaashato mana xuma dabcan in dowladdu ay la timaado qorshe ay mujtamaca kula soo laabanayso ajendaha ay u wado ay rabto in ay dalka gaarsiiso. lacagta waa in la helo qorshe meesha ay ku naqanayso ay caddahay mas-uuliyadaha qaar marka maalinta aan saarayno iyada ma laha wasaarad kale aa yeelan karo dowladda hoose aa yeelan karto ciidamada aa yeelan karo iyada dadkaanaa shaqo ugu dirsaday mushaar siyaa la dakhliga soo aruuri waa in lagu dadaalaa wax kasta ee gudaha waddanka laga soo saari karo in la joojiyo in bannaanka laga keeno that's all meesha wadan leeyahay wixiiba soomaalidu ay soo saari karto oo suuqa ay dabooli karto in gudaha laga soo saaro. gabagabadii kulanka waxaa soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda cabdullaahi sheekh cali qalooco iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda doctor cabdiraxmaan ducaale bayle. barnaamijka marka maanta waa ballaaran yahay waa horumarinta dhaqaalaha waxaad moodaa horumarinta dhaqaalaha markii la yiraahdo dadku inay wasaaradda kaliya soo fiiriso waa wax naga wada dhexeeya dhammaanteen waa scope weyn haddaan la isla wada qaban mid bayle iyo xayir iyo cabdullaahi sheekh lagu eedi karo ma aha runta markaa rabtaan waa arrin aada u culus waddankan qorshaa loo sameeyey haa laakiin maxay rabtaa fulinay u baahanta halkan markaa waxaanu joognaa waxa weeyaan oo talagalku yahay dakhligii in la kordhiyaa la rabaa waan ku mahadinaynaa dadkii cashuurta bixiyana oo ganacsatadu kow ka tahay now waxaan leenahay markaa waxa weeye dakhliga ina soo gala ma daboolayo waxyaalaha aan doonayno inaan samaysano adduunku wuxuu ku shaqeeyaa budgetku ku shaqeeyaa waa dhowr qaybood wey si aad u wada ogtihiin dhaqaalayahanku si fiican u ogyihiin way qaban kareen haatan iyo danna waxaa la leeyahay dadka soomaaliyeed guda iyo dib meesha doonaha joogaan kii cashuur lagu leeyahay una bixi kii aan cashuur lagu lahayn meel kala joogowna baanka tag oo dollar ku shub oo laba ku shub oo saddex ku shub intaad karta ku shub accountskina waa kuwa meesha ku qoran. cabdiraxmaan shoodhe universal TV muqdisho. dallada ururada bulshada rayidka ee soonsaf ayaa magaalada hargeysa waxay tababar ugu qabatay goobjoogayaasha maxalliga ah ee maalinta beriya ka qayb geli doona qabsoomidda doorashooyinka maalinta beriya loo dareerayo. waryahayga cabdiruus beershi ayaa mar kale warkan inoo haya. dallada soonsaf ayaa tababar uga furtay magaalada hargeysa goobjoogayaasha maxalliga ah ee doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee somalilan oo maalinta beriyaha loo dareeri doono. furitaanka tababarkani waxaa ka qayb galay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka, gudoomiyaha xisbiga u ciid injineer faysal cali waraabe, gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed iyo mas-uulka socday midowda yurub. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dallada soonsaf anwar cabdiraxmaan waxaanu ka warbixiyey ujeedada tababarkani. waxaynu leenahay khibrad iyo waayo aragnimo inagu filan, laakiin maanta waxay kaga duwantay doorashooyinkii hore laba qodob. qodobka koowaad waxa weeye maanta waxaynu galnay laba doorasho isku sidkan oo muxuu ahaa culayskeeda iyo baaxadeeda leh. qodobka labaadna waxa weeye maanta way xagga technology-ga aad bay uga farsamo muxuu ahaa fiican tahay beriyihii hore oo sidaa ka warqabtaan waxaynu sameynay wax la yidhaha call centerkaas oo ah kaadidu kusoo report garaynaysaan ama aada muxuu ahaa warbixintiina aad soo diraysaan halka lagu kaydinayo. midna waan idinku dardaaraya waxa weeyaan warbixinta aad soo dirtaan waa tahadhow toore xisbiyada iyo qarankuba ay ku xisaabtami doonaan ee riboodka aynu samayn doono haddii ilaahay yidhaahdo wuxuu ku baysgaraysnaan doonaa riboodka ama warbixinta idinku goobaha aad joogtaan ha ka soo dirtaan.
markaa bifadlakum waxaan idin oran lahaa inta kalaankiina inaad mas-uuliyad ballaaran iska saartaan inaad riboodkiinu accurate noqdo warbixintiinu fiicnaato si dalkeenna iyo qarankeennuba uu hagaago geestooda mas-uuliyiintii ka qayb galay furitaanka tababarkani ayaa halkaasi ka hadlay kaloo meelaha kale tababar uga socdo waa gobolka Muqdisho laakiin gobolada dalka oo dhan 6 gobol doorashada way ka wada socotaa fariin isku mid ah oo gudbinayna 6 qolaba hawsha la qabanayo xeerbeegti baa ka timid ku doorashada xeerbeegtuna waxa la rabaa inay ku suntanaato dhexdhexaad markaynu taas sameynayno marna innaka wax kala ridanayno oo loo tartamayna marna sidii Faysal u sheegay waa la wada qiimeynaya waa Somaliland marka Somaliland dalhayeen inteenan wax kala helayna laakiin hadii la waayo inna waxba heli maayo marka waxaynu u baahanahay arintaas qayb ka tihiin arinta waxaynu u baahanahay inaynu aad iyo aad ugu tuntuunsano waa ogtiin dhalinyaro aabaya qaarkood mara awoodaan u ayaa maanta waxaan miiska yaala waa your future waa mustaqbalkiini waxa weeye yaala sharafti reer Somaliland dad badan ajnabi ah ayaa inoo yimi waa la qiimeynaya qiimahaasi kuma sharax lama qiimeeyo musharax ee qarankeena ayaa la qiimeynaya waxaa la baahay inaan tusno inaan nahay one nation one country ina halkan markaa ka baxaysaan meesha u baxaysaan naftiina la dardaarataan oo civil society ku baxdaan qabiilkaas aad tihiin maanta civil society ayaa tihiin waxaa laga yaabaa oo insha Allah dhawaan dhalinyarada inaynu gaarayno inaynu dunida u diro goobjoogayaal oo ka qayb galo doorashooyinka caalamka goobjoogayaal sida la inoogu soo dirayo u diran laakiin waxay ku imanaysaa runtii xaqiiqda iyo recordka iyo waxa soo baxa ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland iyo gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ayaa booqasho ku tagay xarunta loo diyaariyay la socoshada arrimaha doorashooyinka oo ay Sonsaf ka hirgelisay magaalada Hargeysa kaasi oo ah call center ay ka shaqeynayaan dhalinyaro loo tababaray waa Idris Bershe telefishinka Universal Hargeysa komishanka doorashooyinka Somaliland waxa ay magaalada Burco ku kala direen shaqaalaha iyo agabka kala duwan ee maalinta bariya lagu codeyn doono isla markaana la geyn doono goobaha codbixiyayaasha warkan magaalada Burco waxay nooga soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Camaar guddiga komishanka doorashooyinka ee Somaliland ayaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa ay ka kala direen shaqaalihii agabkii iyo sidoo kale waliba gaadiidkii ka howlgalayay goobaha ay sida rasmiga ah maalinta bariya uga bilaamayso codbixinta doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo sidoo kale baarlamaanka goobaha shaqaalahan loo kala diray oo ahay deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer iyo sidoo kale gudaha degmada Burco ayaa goobta lagu kala dirayay oo ahay dugsiga Sheekh Bashiir ayaa waxa goobjoog ahaa mas'uuliyiinta sarsare ee guddiga komishanka doorashooyinka Somaliland mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay xisbiyada qaranka ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadashay Marwe Kartuun oo ka tirsan mas'uuliyiinta sarsare ee guddiga komishanka doorashooyinka ee Somaliland bishu tahay 30 waxaanu ku sugannahay iskuulka Sheekh Bashiir ee magaalada Burco oo aanu ka rabayno qalabkii iyo gaadiidkii iyo shaqaalihii ku hawlgeli lahaa doorashooyinkaas oo ah laba doorasho isku sidkan waa doorashada wakiilada iyo doorashada deegaanka hore Somaliland kuma dhicin in laba doorasho isku sidkan oo baaxad leh ay ka qabsanto culeyskeeday leedahay guusheedana way leedahay labada doorasho waxa weeyaan qaabka loo kala codeynaya qofka u sharaxan wakiilada wuxuu leeyahay calaamad ama sawir buu leeyahay qofka u sharaxan golaha deegaankana wuxuu leeyahay number marka qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu qaato labada waraaqoodba dabadana intuu la gala halka loogu talagalay in lagu codeeyo uu u xariiqo qofka uu doonayo wakiiladana calaamada uu eego qofka kale ee deegaankana number buu eegaya halka loogu talagalay waa afar gees warqad qofku arki doona afar geeska qofku dhinacna lama rabo inuu u dhaafo waxa soo raacay qofka aan garanayn ama aan akhriyi kareynin wuxuu la imanayaa gudoomiyaha goobta kabacdi waxa uu calaamadinaya gudoomiyaha goobta
gudoomiyuhuna wuxuu tusayaa muraaqibiinta saddexda xubnood ee ka socda xisbiyada ayuu tusayaa warqadii wuxuu oranayaa hebel wuxuu u codeeyay qofka noocaasa calaamadiisana waa sidaas ugu dhigay sidaasay ku noqonaysaa wax lagu wada kalsoon yahay laba qof baa loo ogoliyay inay codeeyaan waa qofka kaarkiisa ta lafta ahaa ee codbixinta iyo qofka haysta warqadda shahaadada ee buluuga ah ee la siiyey xilligii kaar bedelka haddii aanu nahay gobolka Togdheer waxaan halkan ka soo jeedinayaa anigoo baro saabkii ah number 1 in lala shaqeeyo komishinka qaranka ee ku hawlan garsooridda iyo doorashada isku sidkan la shaqeyso dadka ku ridaya hala shaqeeyaan si aanay nabadgelyadu wax maartay buuq iyo problem noo gelin hore waynu soo wadnay nabadgelyo noogu dhacday tan insha Allah nabadgelyo noqon doonta waxaan leeyahay booliiska dadweynuhu la shaqee laftoodu campaignerska ahana waxaan sheegaynaa inay dhamaatay oo ay maanta tahay in sanaaduuqda codka lagu rito nin walibana wixii uu ku rito ayaa insha Allah taala uga soo baxaya waxa dhamaaday isriixriixi baa dhamaaday waxa kaliya inoo haray waxa weeye kala tirsiga waraaqaha ayaa inoo haray Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan wararka telefishinka Universal magaalada Burco komishanka doorashooyinka gobolka Sool ee magaalada madaxdiisa Laascaanoodna waxa ay kala direen shaqaalaha iyo agabka maalinta bariya la geyn doono goobaha codeynta ee gobolka Sool wariyahayaga Khadar Rigax ayaa warkaasi noo soo diray komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta kala diray shaqaalihii iyo gaadiidkii ka howlgali lahaa doorashooyinka golayaasha isku sidkan ee Soomaaliland waxaana ka hadlay madashii lagu kala dirayay shaqaalaha iyo gaadiidka ka howlgali doona komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sool komishineero ka socday komishanka doorashooyinka maamulka gobolka Sool iyo kan laamaha ammaanka hawsha aynu gacanta ku hayno ee ah hawshii doorashooyinka oo muddo 9 bilood gaaraysa laga soo shaqeynayay oo doorashadeedu ay berrito dhici doonto in ilaahay horta inagu guuleeyo nabadgelyo inagu dhameeyo insha Allah taala saasan ilaahay ka baryana marka labaad waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadcelin ilaahay baa mahad leh waxa weeye maanta waa 30kii bishii shanaad 2021 waxaynu halka u taaganahay inaynu maanta dhammaan goobihii degmada Laascaanood iyo Taleexo iyaduna saaka baxday inay goobahoodii caaw wada hoydaan waxaan bulshada gobolka Sool oo maanta loo diyaar garoobayo in doorashadii la galo oo afarta degmo Laascaanood Caynabo Taleex iyo Xudun iyo goobaha laga codeynayo dhamaantoodba bulshada waxaan ka codsanaynaa inay codkooda dhiibtaan waa la tartamayaa tacab badan baa la geliyay hadday diiwaan gelin tahay hadday update tahay hadday kaar qaybin tahay marka bulshada waxaan leenahay waa maanta mirihii aynu inta soo beereynay maanta aynu guranaynaa hal la codayo fadhiga hal laga kaco gobolka codkiisa hal la muujiyo murashaxiinta waxaan leenahay masrixii iyo ololihii iyo hawlihii oo dhan waa soo gabagaboobeen qof kastow si sharaf leh oo nadiif u tartan annaga waxaan la ka rajaynayaa cadaalad waxaan la ka eegayaa inaanu arinta ka garsooro maalmaha aynu ku soo fool leh oo maanta laga bilaabo waxa weeye komishanka doorashooyinka qaranka ayaa awoodda ugu sareysa leh waxaan rajaynaynaa in la ku ixtiraamo waxaan rajaynaynaa qof kasti inuu meeshu kaga aadan yahay hawsha insha Allah ka soo bixi doono nolol soo ducayo insha Allah in hawsha Ilaahay inuu ku guuleeyo si aynu la wada socono caalamka oo dhami Soomaaliland soo eegaya maanta cid kasta waxay leedahay war doorashada isku sidkan ee golo deegaan iyo baarlamaan xaaladeeda cid kasta indhay ku soo haysa waxaan rajaynaynaa in hawshaas insha Allah bari si fiican inuu ku qabsanto gobolada oo dhan si wanaagsan u codaysaa waa nabadgelyada ilaasha axsaabta xisbiyada waxa weeye si wanaagsan oo nadiifa oo nabadgelya ku suga haddii ilaahay ilaahdo nin walba waa codkiisa waxay la tahay maanta waa maalin weyn waxaanu joognaa shaqayno in badan soo qabanay oo ilaahay wanaag iyo sharaf inagu soo dhameeyey intii hore halkii ugu dambeysay ayaa maanta la joogaa waxaan rajaynayaa nin walbaaba wixii uu intaas soo shaqaysanayay imtixaankii baa la maraya inuu berrito helayo
qof walba oo deegaan ka tirsan ama gobol ka tirsan waxaan ka codsanayaa halkii uu ka odayn lahaa inuu caawa joogo. Movementigu waa mamnuuc wixii biri loo gaaro, stiikaradu waa mamnuuc, calaamadaha asxaabtu waa mamnuuc, wax kasta oo lala muujin karaaba lama ogola. marka in sharcigan loo hoggaansamo komishinkana loo hoggaansamaan rabnaa keliya ninka musharaxa wax laga rabaa codka. Khadar Faarax, Khadar Higax, Universal TV, magaalada Laascaanood. wagaag daawadayaal halkaad nagala socotaan waa Universal TV stuudiyahan ku leenahay magaalada Hargeysa. waxaan si toos ah idiga soo gudbin doonaa warkii caalamka imikana magaalada Nairobi. shirkadda Al Bushra Real Estate ayaa maanta dhismo ganacsi waxa ay ka dhagax dhigtay magaalada Nairobi. wariyahayaga Siciid Qarafaan ayaa warkaasi Nairobi inaga soo diray. xaflad kooban ay ka soo qayb galeen ganacsato, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo lagu dhagax dhigay dhismo ka kooban 7 dabaq ayaa maanta laga dhagax dhigay xaafadda Kilimani ee magaalada Nairobi. dhismahan oo ah mid loogu talagalay in kor loogu qaado ganacsiyada Soomaalida ee Nairobi ayaa waxaa dhisaya shirkadda Al Bushra oo horey u fulisay dhowr mashruuc oo dhismayaal ah. gudoomiyaha Al Bushra Real Estate Limited Sheekh Maxamed Shakuul ayaa dadkii kulanka ka soo qayb galay u sharaxay moolkan ay dhisayaan iyo qaybaha uu ka kooban yahay. waxaanan ugu talagalnay inay ganacsatada Soomaaliyeed ka faa'iideystaan, inay dukaamo ka furtaan haweenku, inay ku baraaraan. waa mashruuc weyn. haddaan faahfaahin ka bixiyo mashruuca marka gurigu wuxuu ka kooban yahay 7 dabaq iyo 2 basement. basementiga koowaad iyo basementiga labaad wuxuu qaadayaa 99 gaari. kadibna waxaa ku yaala ground floorka waxaa ku yaala 34 dukaan, supermarket iyo bangiyada waaweyn oo qaabka islaamiga u shaqeeya ayaan insha Allah tacaala wada hadal noo socdaa. supermarketyadu iyaga iska soo daba dhacayaba. supermarketkana gadaal baan geynay si dadka dukaamada ay uga faa'iideystaan oo intay soo dhaxmaraan gadaal ay u yimaadaan. kadibna first floorka waxaa ku yaala 22 dukaan, makhaayad weyn oo ku jeeda dhinaca Yaaya Center oo banaanka laga arko, banaanka balcony banaanka leh, dukaamo kale iyo waxaa ku yaala qaybtii labaad ee supermarketka. kadibna kor waxaa ku yaala dukaamo kale. waxaan u yeeraynaa dhammaan xawaaladaha Soomaaliyeed oo dhan inay xarun ka furtaan halkan. waxaan u rabnaa inaan ka furno wax kastoo loo baahnaa, saloonkii dumarka, timajarihii, sidaad ogtihiin masaajid, meel kasta oo ganacsi ka bilaabo. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa ah inuu ilaahay u waafajiyo inaan masaajid ka furo. waana wada aragteen. gudoomiyaha ganacsatada Islii iyo xildhibaanka degmada Kamakuji ee Islii ay ka tirsan tahay xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa hadlay, waxayna bogaadiyeen ganacsatada Soomaaliyeed ee moolkan dhisaya. waana ku faraxsanahay maxaa yeelay Sheekh Shakuul wuxuu ku fiican yahay dad aruuris iyo dad isu keenidda oo sifa oo yacni maalgelid ku sameeyaan mashruuc oo kala duwan. suwaaba sheegay Madiina Mall, Islii Mall, Mecca iyo meelahaas kulli. waxyaalo badan oo berigii horeeto annagu aan u hawaysan karaynin ayaan maanta u hawaysan karnaa. midda labaad waxaan leeyahay Soomaalidu berigii horeeto Islii baa lagu xisaabin jiray, South Sea baan iminka u wareegnay, Parklands baan u wareegnay, maantana waxaan joognaaba xaafadan Kilimani la yiraahdo oo dadku Soomaalidu ay aad iyo aad ugu badan yihiin. markaad meelahan wareegto waxaa ka muuqda gabdho Soomaaliyeed oo shaadid xiran, rag Soomaaliyeed oo dareeskooda aad ku garanayso. marka waa ilaahay mahadi in aan heerkaasi gaarnay. waxaanan ka baryayaa inuu ilaahay noo sii kordhiyo barwaaqadaasi iyo xasiloonaantaasi. waxaa kaleeto oon doonaya inaan intaasi ku yar daro isbahaysiga ganacsiga ee meel kasta aad ku arkayso. Soomaali meel kasta oo ka timid intay isbahaysato ayay ganacsi samaysataa. Siciid Qarafaan, Universal TV, Nairobi. wagaag daawadayaal halkaad nagala socotaan waa Universal TV stuudiyahan ku leenahay magaalada Hargeysa. weli waxaan ku jirnaa wararka inooga imanaya magaalada Nairobi. shirkadda dhismaha guryaha ee Khalifa Modern Homes ayaa waxay maanta dhisme cusub ka dhagax dhigtay magaalada Nairobi. mar kale wariyahayaga Siciid Qarafaan ayaa inoo soo diray.
shirkadda dhismaha guryaha ee khaliif modern homes ayaa maanta guri cusub ka dhagax dhigtay xaafadda Parkland ee magaalada Nairobi. Dhismahan ayaana ka koobnaan doona 14 dabaq, waxa uuna u dhisan yahay qaab casri ah. Kulan kooban oo ka dhacay halka laga dhisayo dabaqan ayaa la qabtay, waxaana ka soo qayb galay madaxda iyo shaqaalaha khaliif modern homes iyo qaar ka mid ah dadka doonaya inay iibsadaan qaybo ka mid ah guriga iyo kuwa horay u gatayba. Maamulaha khaliif modern homes Ciid Aadan Axmed ayaa sharaxaya qaybaha uu ka kooban yahay dhismaha Khaliif Heights ee laga dhisayo Parkland. maanta ayaa shaqadii noo bilaabatay sida caadiga furitaankii soo dhawaada guriga sida odayaashu ay sheegeen ama horeba xogta ula socoteen gurigu wuxuu ka koobnaan doonaa 14 dabaq wuxuu yeelan doonaa waxyaabaha facility-ga uu wato wuxuu yeelan doonaa parking-kii, swimming pool-kii, gym-kii, masaajidkii, madrasadii gurigu wuxuu noqon doonaa 2 qaybood 4 qol iyo fadhi plus DSQ iyo 3 qol iyo fadhi ayuu gurigu noqon doonaa yeelan doonaa marka sida caadigaana hadda waxaan gadnay gaditaan ahaan 80% guriga hadda waa la gato waa socday 20% baa hartay marka insha Allah bil kariim soo dhawaada walaalayaal aad baan u mahadsantihiin. qaar ka mid ah ganacsatadii iyo macaamiishii khaliif modern homes ee bandhigan loo sameeyay Khaliif Heights ka soo qayb galay ayaa ka hadlay goobta. dhismaha uu doonayay inuu ka dhiso Parkland kambanigu waa kambani weyn oo Nairobi aad looga yaqaano wuxuuna ku tala jiraa guryo badan inuu dhiso. annaga hadda waxaan nimid hal dhisme oo maanta la bilaabayo dhismahaasi wuxuu ku yaalaa meel qurux badan magaalada Nairobi Parkland dadka dhaqaalaha sare leh mooye dad kale aysan degi karin ayaa guriga laga dhisahaya. guriga cusub oo maanta aan halkan ka dhisayna Parkland gurigu wuxuu ka kooban yahay 14 dabaq model kii u dambeeyay weeye waa in laga soo gaaraa qofkii danaylahayo share maxaa la yiraahdaa wax walba waa layna soo dhaweeyay dad loo cabiyay baa guriga maamulhaya. waxaan ahay dadka businesska oo danaynaya inay gurigan ama wax ka gataan ama wax ka qaataan khaliif model baliyada guriga magaciisa gurigu wuxuu ka kooban yahay 14 dabaq buu ka kooban yahay underground iyo wuxuu ka bilaabanayaa iyo masaajid buu ka bilaabanayaa iyo baakin baabuur buu ka bilaabanayaa. Saciid Qarafaan, Universal TV, Nairobi. mahadsanid Saciid. daawada qodobkaasi ayaa waxa uu guniya gabagaba iyo gunaanad u ahaa warkii TV-ga Universal oo aan si toos ah idiga soo gudbinay stuudiyaha TV-ga Universal uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. warkana waxa idin soo jeedinayay anigoo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen iyo asxaabtii kala duwaneed ee gala qayb qaatay warkuba dhamaantay waxaan idiga tagnaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.